haween ka mid ah qurbajoogga degan dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed oo cadadkeedu dhan yahay $500 soo gaarsiiyay Hormuudka wada dhismaha wadada loo bixiyay Turki ee u dhaxaysa deegaanka Cali Xayd ee ka tirsan degmada Baki iyo deegaanka Gargaara oo ka tirsan degmada Lughaya. haweenkani deeqdooda lacageed ay soo direen wadada Turki oo uu wakiil ka ahaa Xildhibaan Axmed Cadoosh oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa guddoonsiiyay Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo isagoo ah garwadeenka wadadaasi Turki ee isku xidhi doonta deegaanada Baki iyo Lughaya. hablo walaalaheena oo muxsiniina oo jooga Ingiriiska magaalada Manchester ayaa waxay soo gaarsiiyeen wadada markii ay ka arkeen TV-ga ama suldaankood maxay ahayd hawsha la rafanay markay arkeen bay runtii maxay ahayd ka damqadeen waxaanay soo gaarsiin waxoogaa yar oo runtii ay dhaahdeen waa hordhac aanan filayno wixii horeeyay malaha qolada Manchester naga soo gaadhay qayladhaanta suldaanka ka soo jawaabtay taasoo markaa ay soo wakiisheen Sucaad Mustafa Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi oo joogta Manchester la muxsiniinta walaalaheena waxaan leenahay aad iyo aad mahadsantiin suldaan waxay markaa soo wakiish ay gabdhahaas ay soo wakiishay Sucaad Mustafa Cabdiraxmaan Qaadi Sucaadna waxa ay soo wakiilatay aniga oo ah Axmed Maxamed Cadoosh xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada waxaan markaa doonayaa inaan suldaan kugu wareejiyo 500 oo ay maxay hayday hableheenaasi ay noogu soo deeqoonayeen hordhac way ayaan suldaan hadii ilaahay rabaa inaad igala wareegto dad ma tahay xildhibaan ilaahay baa mahad iskale waxa weeyaan marka horeba wadada dadka reer awdal qurbajoogga wax ka yimaado baan ku sameeynay wali dalka aba yaraatee maaragtaa wax naga soo gaar xitaa awdal la dhaho ma jiro meel fiican bay nala maraysaa waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa Sucaad habeen bay la soo hadashay anigoo meel kaara mardhal la yiraahdo buuraa dhexdooda aan soo marayo oo ka yimid xagga wadada habeen ila soo hadashay oo iskay bartay waxa weeyaan adeer waan helay deeqdii maaragtaa waka maaragtaa xildhibaanku igu wareejiyay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin waxaan ku qooqnayeen wadada samaysta u nidhina waa idinka adeerayaal waan inii soo ducaynana ilaahay idinkii waxaan ilaahay ka rajaynayaa idinkoo dalxiis oo wadankiina daawanaya inaad wadada Turki ka dhaadhici doontaan oo dhammaystirantay ilaahay baan taa ka baryayaa waxa weeyaan aad iyo aad baan inoogu ducaynana waxaad haysaan Allah inii barakeeyo waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hablaha ama koonfur ha noqdaan ama waqooyi ha noqdaan Soomaalinimo wax ku soo bixiyay wadaduna miskiid bay la mid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan waa rajo weyn baa halka ka muuqato inay Soomaalinimadii ay dib u soo cusboonaanaysaa moodaa waxa weeyaan adeer ilaahay halka ka soo saarteen wax khayr leh ay idin soo galiyo salaam alaykum deeqdan ayaa noqonaysa deeq ka mid ah deeqaha jidkaasi dhismihiisa ka soo gaaray qurbajoogta Soomaaliyeed ee degan dalka dibadiisa gaar ahaan haweenka ku nool wadanka Ingiriiska. Hashim Sheekh Cumar Good, Somali TV, Boorama.